diblomaasiga Mareykanka ah ee ruwacdaaga ah ee Henry Kissinger ayaa sheegay inay soo dhawaatay xilligii la gali lahaa wadahadallo nabadeed oo lagu soo afjarayo xiisadda ka taagan dalka Ukraine si hoos loogu dhigo halista inuu qarxo dagaal kale oo caalami ah. hase ahaatee xukuumadda Kiev ayaa ku gacan sayrtay faallada uu bixiyay diblomaasigan Mareykanka ah, iyada oo xukuumadda Kiev ay ku tilmaamtay inay tahay mid lagu raali gelinayo cidda gardarrada wada oo ay ula jeedo Moscow, iyaga oo xukuumadda Kiev waa xukuumadda Ukraine ay sheegtay inaanu jirin heshiis lagu wareejinayo dhulkooda. Mr. Kissinger oo haatan da'diisu ay tahay 99 sano jir ayaa ka mid ahaa raggii wax ka nashqadeeyay siyaasaddii Mareykanka ee xilligii dagaalkii qaboobaa uu ku wajahay Midowgii Sofiyeeti, isagoo xilligaasi ahaa xogayaha arrimaha dibadda ee madaxweynihii Mareykanka ee Richard Nixon iyo sidoo kale madaxweynihii kale ee Gerald Ford. Kissinger ayaa dhowr jeer la kulmay madaxweyne Vladimir Putin tan iyo markii uu noqday madaxweynaha Ruushka sanadkii 2000. wadamada reer galbeedka oo Mareykanku uu ku jiro ayaa si weyn u dhaleeceeyay weerarada gardarrada ay ku tilmaameen kuwaasi oo uu qaadayo madaxweyne Vladimir Putin, waxaana ugu weynaa weerarkii bishii February ee sanadkan uu ku qaaday dalka Ukraine. duulaankaasi oo ay ku dhinteen 10 qof halka ay ku barakaceen malaayiin kale. Ruushka ayaa haatan gacanta ku haya ku dhawaad 5 meelood meel dhulka Ukraine. waxaa soo dhawaanaya xilligii lala iman lahaa qorshe iyo isbedello istiraatiijiyadeed oo horey loo gaaray iyo in lagu daro qaab dhismeed cusub oo tilmaamaya habka lagu gaarayo nabadda iyada oo la marayo gorgortan iyo wadahadal, ayuu yiri Kissinger oo faallo ku qoray majalada lagu magacaabo The Executor magazine. Hannaanka nabadeed waa inuu Ukraine ku xiraan NATO. Si kastaba ha ahaatee, nidaamka ku salaysan dhexdhexaadnimo haatan maaha mid shaqeynaya, ayuu sii raaciyay Mr. Kissinger. Henry Kissinger ayaa bishii May waxa uu soo jeediyay xabad joojin ay shuruudaheeda ka mid tahay in Ruushka uu ka baxo jiidda hore ee dagaalka ee ay ku sugnaayeen ka hor duulaankii February, laakiin Crimea ay noqoto mowduuc laga wada hadlayo. xiisadda bariga Ukraine ayaa bilaabatay sanadkii 2014 kadib markii madaxweynihii xilligaasi Ukraine oo taageersanaa Ruushka laga tuuray xilka dalka Ukraine, halka uu xilligaasi Ruushku qabsaday gobolka Crimea, iyadoo gooni-goosadka Ruushka uu taageerana ay dagaal ka bilaabeen bariga dalka Ukraine, waa si gaar ah gobolka Donbass. Mudane Kissinger weli waxba ma uusan fahmin, sidoo kale ma fahamsana dabeecadda dagaalkan iyo saameynta uu ku leeyahay nidaamka adduunka. sidaasi waxaa sheegay kaaliyaha madaxweynaha Ukraine Mikhail Podolyak oo qoraal soo dhigay Telegramka. dowladda Ruushka wax faalla ah arrintan kama aysan bixin. agaasimaha hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA William Burns oo wareysi bixiyay ayaa sheegay isna in kasta oo xiisadda ka jirta dunida ay ku soo dhamaadaan wadahadal, haddana qiimeynta ay sameysay hay'adda CIA waa inay muujinayso, ayuu yiri, in Ruushku aanay si weyn ugu go'nayn inuu galo wadahadallo dhab ah oo lagu soo afjarayo colaadda. isaga oo uu sheegay sarkaalkan ka tirsan ee CIA ama ninka ugu sarreeya in Ruushka ay tahay in kolka hore inta aan wadahadal lala gelin lagu xanuujiyo goobaha colaadaha. wuxuu tilmaamay inay muhiim tahay in taageerada ballaaran iyo saanadda militari ee la siinayo dowladda Ukraine sare ay u qaadaan dowladaha reer galbeedka, isagoo tilmaamay markani inay muhiim tahay in door fiican laga ciyaaro tababaridda ciidamada dalka Ukraine. waxa uuna tilmaamay sarkaalkani inay muhiim tahay in sare loo qaado tababarka iyo xirfadaha kala duwan ee ciidamada Ukraine, sidoo kalena loo dhammaystiro dhammaan saanadda ay ku howlgeli karaan. waxa uu tilmaamay in Ruushku macquul aysan ahayn inuu ku sii jiro colaadda maadaama cunqabateenada reer galbeedka, ayuu yiri, ay waxyeeleeyaan dhaqaalaha dalkaasi. inkastoo xukuumadda Moscow ay ku andacoonayso in dhaqaalaheedu uu sii hormarayo oo aysan u istaagaynin ama u joojinaynin cunqabateenada ka imanaya galbeedka. sarkaalkani xukuumadda CIA waxa uu sheegay in xogaha sirdoon ee ilaa haatan ay hayaan uu tilmaamayo in ciidamada Ruushka ay ka niyad jabeen gelitaanka colaadda. waxa uu sheegay marar ahaan inay sareeyaan ciidamada Ukraine maadaama, ayuu yiri, ay taageero militari oo ku filan ka helayaan dalalka reer galbeedka. sidoo kale waxa uu tilmaamay in saanadda militari ee Ruushka ee goobaha colaadaha qaarkood ay gabaabsi yihiin, waxaana ka mid ah, ayuu yiri, gantaalada laga tuuro maraakiibta iyo sidoo kale kuwa ka soo dhaca cirka oo ay tuuraan diyaaradaha. waxa uu tilmaamay gantaaladaasi lidka diyaaradaha ee ciidamada Ukraine intooda badan inay ka hortageen. waxa uu sheegay
in dhammaan shacabka ee Ruushka aysan dagaalkani wada taageersanayn, isagoo tilmaamay in qayb yar oo ka mid ah dadka Ruushka oo taageero ka helaya xukuumadda in dagaalkani ay u ololeynayaan. Waxa uu sheegay dadkaasi Ruushka u dhashay ee dagaalka taageeraya inay u badan yihiin dad dana gaar ah kale madaxweyne Putin. Waxa sidoo kale sarkaalkani uu soo jeediyay in reer galbeedku ay muujiyaan isku duubni iyo ka go'naanshiyo in Ruushka loola macaamilo sida dowlad cadow ah. Hase haatee, meesha waxa uu ka saaray in la isku dayo in Ruushka laga fogeeyo wadahadallada iyo sidoo kale goobaha diblomaasiyadda caalamka lagu jeexjeexo. Waxaa sidoo kale wararka uu soo jeediyay ka mid ah dib waxaan ugu noqonaynaa Henry Kissinger. Talooyinka uu soo jeediyay Mr. Henry Kissinger, xogayihii hore ee Mareykanka ee ah khabiirka dejiyay siyaasaddii Mareykanka ee 30kii sano ama 40kii sano ee dagaalkii qaboobaa Mareykanku uu kaga hortagay Midowgii Sofiyeeti. Waxa uu soo jeediyay talooyin ballaaran oo qayb ay ka tahay in Crimea gobolkaasi loo daayo Ruushka wadahadalna lagala galo. Sidoo kale Ruushka ay tahay inuu ka baxo 4 gobol ee xoogga uu ku haysto. Waxa uu ku tilmaamay waana gobolada Zaporozhye, Kherson iyo sidoo kale Luhansk iyo sidoo kale gobolka Donetsk. Waxa uu sheegay Ruushka mandiqadaasi marka uu ka baxo in ay tahay in la geeyo ciidamo isku dhaf ah oo qaramada midoobay ay kor kala socoto. Waxa uu sheegay ciidamadaasi muhiim inay tahay inay ku jiraan dalal Ruushka uu ku kalsoon yahay iyo kuwa Ukraine ay quud darayn karto. Waxaana dalalkaasi uu tilmaamay inay qayb ka noqon karaan Turkiga iyo sidoo kale ciidamo ka socda Midowga Yurub iyo Shiinaha. Waxaana kolkii ciidamadaasi la geeyo mandiqada ay tahay ayuu yiri in laga qabto afti ay bartaarayso qaramada midoobay oo ayadu ay qabanayso. Waxaana shacabka la weydiinayaa cidda ay doonayaan inay ku biiraan Ruushka mise Ukraine. Haddii shacabku ay doortaan inay ku biiraan Ruushka, waxa uu sheegay in markaasi ay tahay in ay ku qancaan reer galbeedka in dadka rabitaankooda la ogolaado. Waase haddii Ruushku laga guuleysana ay tahay in Ruushku uu isna uu ku qanco in goboladaasi laga yeeshay. Sidoo kale waxa uu sheegay in wadahadallada reer galbeedka iyo Ruushka aan la gooynin, oo uu tilmaamay in haddii Ruushka la gooyo wadahadallada la leeyahay ay ka dhalan karto in tallaabooyinka Moscow ay noqdo kuwo cawaaqib xumo ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in umuuraha ugu waaweyn ay tahay in Ruushka lagu ixtiraamo ay ka mid tahay baaxadda dhuleed ee Ruushka oo ah mid ballaaran. Waxa uu sheegay in taasi ay u saamaxayso xukuumadda Moscow inay noqoto dal waxyeello baahsan gaarsiin kara dhammaan dunida. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in loo baahan yahay in la iska saaro caqliyadii dagaalkii qaboobeed oo aan ahmiyadda ugu horeysa la siinin sida geopolitics-ka iyo sidoo kale juqraafiyad siyaasadeedka caalamiga ah ee dowlad walba ay ugu kaashan lahayd masaalixdeeda gaarka ah. Waxa uu sarkaalkani tilmaamay inay muhiim tahay in la hormariyo masaalixda caalamiga ah iyo in laga fogaado dagaal kale oo dunida halakeeya.